sanadka 2023 ha ku ahaado sanadkii aad hadafyadaada ka run sheegi lahayd, sanadkii aad naftaada horumarin lahayd, sanadkii aad furaha guusha heli lahayd, sanadkii aad horumarka ka shaqayn lahayd, sanadkii aad qoran lahayd qodobadaada, sanadkii aad ka tanaasuli lahayd cayda, sanadkii aad ka tanaasuli lahayd qabiilaysimka, sanadkii aad ka tanaasuli lahayd gocoshada, sanadkii aad ka tanaasuli lahayd inaad is yaraysato oo u aragto naftaada naf aan waxba qaban karin, sanadkii aad maaragtay aad isku arki lahayd qof aan waxba horumar samayn karin, waxba ilaahay lixlixaad buu ku siiyey horumar baad samayn kartaa. sanadkii aad wax baran lahayd, sanadkii aad walow kaana hal aayad ha ahaatee aad baran lahayd diinta, sanadkii aad tafsiirka baran lahayd, naxwaha baran lahayd, walow kaana one course soconaysa ha ahaato one week aad wax baran lahayd, buug akhrin lahayd, luuqad baran lahayd, anykan luuqadaad ilaahumay luuqadaada hooyo ahaato, sababtoo dad baan aqoonin luuqadooda hooyo sida loo akhriyo ama loo qoro just ku hadli karo waa horumar, waa gool aad gaadhay, ilmahaaga aad bari lahayd. Marka aan is horumarino, aan ka tanaasulno waxyaalaha qaabka daran, laadis dhankaas aan isu jahayno iyo horumar iyo aan sare ina keena.